كيس سيتا عبدا جراس سيدا دكن مريم والله يمكن عارفين نقطة سيبوا نقطة سيبوا بحث يسوي واركان سيبوا بحث magaalada Hargeysa ayaa maanta degan kadib markii maalintii shalayto ay ka dhaceen qaraxyo lagu leeday oo dad naftooda soo biimeeyay ay la beegsadeen madaxtooyada Soomaaliland Hargeysa safaaradda Itoobiya ee magaalada Hargeysa iyo hay'adda qaramada midoobay ee UNDP xukuumadda ayaa tan iyo xalayto amaanka aad u xoojisay iyadoo oo wali ay xiran yihiin wadooyinka hormara saddexdii goobood ee qaraxyada lagu weeraray kuwaasi oo lagu jaray gaadiidka tiknikada ah ee qoryuhu saaran yihiin iyo dhagaxaan asaatee dadka lugta ku socda loo ogol yahay in ay maraan shacbiga ku nool caasimadda Hargeysa ayaad wali waxaad ka dareemaysaa firkanixii shalayto ay ka qaadeen qaraxyadii lama filaanka ahaa oo aanay dhagahoodu muuqal dhowr iyo 10 sano ee ugu dambeeyay dhinaca kalena xarunta madaxtooyada ee Hargeysa ayaa burbur aad u weyn uu ka soo gaaray weerarkii shalay iyada oo afaafka hore ee gudaha aqalka madaxtooyada laga galo uu ku hor qaraxay gaariga qaraxa loo adeegsaday ee madaxtooyada loo isticmaalay kaasi oo burburiyay qaybo tiro badan oo kamid ah xafiisyadii dhismaha madaxtooyada asaaka ayaa halkaasi waxaanu ku aragnay iyada oo dib loo dhisayo ama dhismo lagu bilaabayo burburkii lixaadka lahaa ee maalintii shalayto soo gaaray xarunta madaxtooyada qaraxan ayaa wuxuu aad u saameeyay dhismaha madaxtooyada qaybaheeda kala duwan kor iyo hoosba madaxweynaha iyo qoyskiisa oo xilligaasi ku sugnaa xarunta madaxtooyada ayaa sidii wararkayga shalay aanu idinku soo sheegnay ka badbaaday masiibadaasi hase ahaatee ay dad badan oo kale ku dhinteen barxadda madaxtooyada iyo weliba labadii goobood ee kale ee qaraxani oo ka dhacay muuqaalkan idiin muuqda waa haraagii gaarigii saarafka nooca loo yaqaano oo ahaa ee loo adeegsaday weerarkii madaxtooyada lala beegsaday gaarigan waxa kaliya ka badbaaday waa qadar yar oo ijiinkii iyo qaybo yar oo kale kamida marka horeysa waxaan tacsiir u dirayaa dhammaan dadkii eheladii iyo qaraabadii dadkii maaragtay falka waxshinimada ah ee 29 Oktoobar dalkeena lagu soo qaaday ee lagu beegsaday madaxtooyada xafiiska Itoobiya iyo UNDP tacsiir baan u dirayaa marka horeysa ilaahayna waxaan uga baryayaa kuwii dhaawaca ka soo doogeenay inuu ilaahay caafimaad siiyo kuwii kalena Allah u naxariisto laba waxa laga maarmaan ah inaan xusuusino imisa fal oo argagixisado ay ku soo qaaday Soomaaliya kii ugu horeeyay baabuurka UNDP 19 bishii 2002 wuxuu ka mid ahaa fulalka argagixisada ee lagu soo qaaday dalkeena nin u dhashay Martin nin loo jiray oo hotelka Star lagu diray 30 December 2002 wuxuu ka mid ahaa fulalka argagixisada ee dalkan lagu soo qaaday Annalina Tonoli shantii bishii 10 2003 gabadhii nurse ahayd ee Boorama lagu dilay waxay ka mid ahayd falalkii argagixisada ee lagu soo qaaday dalkan waxa ku xigay 22 November 2003 falkii lagu dhacay lacagtii wajaale oo ninkii shalay qiranayay ana ka dambeeyay waxa ahaa in Cabdi Godane أو ملحقها وحكوا حجي دلكي قبل ركينيا سقالي يتومكي بيشي سبحان الله تكون إياه أفر ودين لقفوليه وحا حجي هو القلكي للدورة إن وحروية له دورة شديني بارلمانك
22 سبتمبر 2005 waxaasoo dhan waxay ahaayeen falal argagixiso oo lagu beegsanayay in Soomaaliland lagu khalkhalgeliyo maadaama ummadani waxyaabo badan dadaal badan ay sameysay oo aan oran karo kuwa sheegta al-shabaab ay ashayaadiin badan ugu waqaana ashayaadiin baan waqaana ay rabaan inay Soomaaliland kala mid dhigaan meelaha waxyaabaha ka dhacaya waxaan xasuustaa berigii u horeysay lamaanihii sheekh la dilay iyo Annalina oo ahayd 2003 inaan idhi falalkaas waa argagixiso oo dadku ay la yaabanaayeen oo aniga lahaa maxay dalkeena argagixiso loogu sheegayaa ka sameeyay waxa xusuus mudan waayo qofku hadduu iska dilayo dad bini aadan oo wax dambiye geysan magac kale oo markaa loo sheegi karo oo aan argagixiso ahayn run ahaantii ma jiro adduunka waad ogeydeen 3 maalmood u dambeysay Mumbai wixii ka socday Mareykantii ku dhacday waad ogeydeen 11 September maxaa laga bartay waxa la isweydiiyay marka qaarkood war waxaan dhacaya maxay wax looga qaban waayay waa su'aalaha laga yaabo inay dadkeena ku soo noqnoqdaan markii la qiimeeyay xaaladahan dhacaya waxa lagu qiimeeyay waxani mal ogaan kari waayay maxaa looga hortagi waayay waa waxaan ku soo dhici karin ba maskax bini aadanka waxyaabaha noocaas inay dhacayaan Mareykan oo kale diyaaraduhu inay duulaan oo magaalooyinkooda galaan de wax maskaxda Mareykan ku soo dhacaya maahay waxaan ku dadaal doonaa xukuumadahan bal intayada aqoonta ciidamada amniga kor loo qaado si ay baraarug u yeeshaan lagaga hortago dhacdooyinkan tii baarlamankeena nasiib wanaag waxaa suuro gashay inaan sii ogaano laga sii howlgalay waxa la sii ogaado waa laga hortagi karaa laakiin waxaana la sii ogaan dhibaatadiisa yeelanaysa in laga hortago baaristii meel fiican bay maraysaa waxaa fal dhacay way ku jireen dad shisheeye innaka u badnayn markastaba innaka u badnayn dadka sameynayay dad innakoo la duufsaday oo quraanka shaydaanka ee diinta islaamka aan ku jirin loo akhriyay ayaa falalka inta badan adeegsada Soomaalidu waxa ku mahada gudun yahay ma goyseen hadduna barkay kugu jir ninkaas qarxiyay ee hargeysay loogu yimid haddana ninku qarinayn oo aanan alaabta soo ururinayn ma dhici karteen inuu lagu qarxo waxa markaa loo baahan yahay shacbiga Soomaaliland inaan kulligeen soo wada jeedno kulligeen booliska wada noqono baa loo baahan yahay oo waxyaabahan ka dhacaya caalamka aan aragti mid ah oo wadaniyada anigoo aad uga amaanaya shacbiga Soomaaliland inay markastaba aragtida leeyihiin oo markastaba falalka dhacayay ay gacan ka geysteen aad uga amaanaya run ahaantii waxaan soo jeedinayaa maanta inaan baraarugeena ku ka weyn qaadano waqtiyada ay dhacayeen waxa ay waqtigii doorashada u horeysay dawladda wasaan sameeyay يعني واحد اللي نود دي إلى أن دولتنا قلنا لنا قلنا دجالمية وجددنا لنا قلنا دجالمية فلان كان صورنا الواحد عن وقت يدي دور شوي كي عم بنوني دولتنا هو هي 202 203 تيم الحدود عم بنوني وحان حسوس تا برجي إنجليز كان تجاي لما تكون يو أفرتي صدقيتهم كي مارس بانك بحي هالكن habeenkii anu adis marayaba waxa la sheegay xawalaha ingiriiski halka ku aasan dagaalkii labaad habeenkii la tijabiyay maalinta diinqa lagu dilay qolada UNHCR loo galayna maalintii baarlamaanka ingiriiska ka hadlayay waad garan karaysaa markaa inaan target nahay oo dagaal oo inagu socdo loola jeedo in qarannimadeenan iyo jiritaankeena ma ahin dagaal loola jeedo aniga oo shakhsi ah أما قف كل شخصية
ودقال لولا جيدو مارتاني سوماليلاند iyo qarannimadeeda taa anu waxaan u soo jeedinayaa shacbiga halkan aan u marinayaa inay sidaa u ogaadaan waxa muuqata oo jirta oo maanta inaga qarsooneen caruurteeni oo magaalo kasta laga kaxiyay inamada shahaadiinta inaga noqday ee koonfurta jooga Afghanistan iyo in Cabdi Godane ay madaxda ka yihiin ayaa caruurteena halkan ka kaxeeya oo halkaas jooga ولا لقوية وقارنا هالكا يكون بنتان قارنا اللي نوصو توبراي اللي نوصو عليها وحموغتا اون هالكا جعلها إلان فرينتان كقود بيو إلي داد واوين وحتى علمدين واوين يكون جران عرورتو دي قاركود اي كسمايي يحرر يكون مقيه ما أوران كرو يكادري لكن ويكا بحثين وحان له الجيسي نمو يعيش الدولة دات كسو ويسيسان هذا يجري ويدان وحنو قاعدين إن رالكتي